munaasabaday soo qaban qaabiyeen xisaabta siyaasadeed ee dalka laguna taageerayo sugidda ammaanka magaalada Muqdisho iyo sidoo kale warmutati ka soo baxay shirka golaha wadatashiga qaran ka oo lagu jiheeyay nooca doorasho ee dalka ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho ugu horeyn mas'uuliyiin kala duwan oo ka socotay madaxda xisbiyada dalka oo munaasabadan ka hadlay ayaa taageero muujiyay ciidanka sugidda amniga magaalada Muqdisho qaabilsan iyo sidoo kale warmutati ka soo baxay shirka golaha wadatashiga qaran kaas oo lagu gorfay nooca doorasho ee dalka magaalada Muqdisho muddo sanad ka hor asay ahayd amnigeeda soo ahaa ee maanta sidoo yahay ma isbedel baa jira mise ma jiro macnaheedu waxaan ugu jeednaa haddii aanu nahay xisbiyada qaranka ama xisbiyada siyaasadeed ee doonaya dalkan doorasho qof cod inuu ka dhaco fikirkaas wata muddo sanad ah isbedel magaaladan ma ku yimid Ramadaan ilaa Ramadaan intuu dhaxaysay mise kuma iimaan annagu aragtideena waxay u egtahay inay isbedel weyn oo magaalada Muqdisho xag amniga ku yimid wada maaragtay shaqayn buuxda oo bulshada qaybaheeda kala duwan iyo hay'adaha amniga ku shaqada leh inay iskaashadeen halkaana ay ka soo baxday maaragtay natiijo qurux badan oo magaalada Muqdisho inteeda badan la isku haleyn karo inay amni tahay waa ku amaanaynaa heerka iyo natiijada maanta ay magaalada Muqdisho marayso hay'adaha amniga waa ku amaanaynaa amaantaasi inay uga sii darto ma rabno inay yacni maaragtay kor u sii qaadaan aan rabnaa inay maamul goboleedyada u gudbaan aan rabnaa in waddankoo dhani uu maanta sida xamar ay tahay uu noqdaan rabnaa markaasaan waxaan ka hadli karnaa doorasho bad qabta iyo dad codkooda dhiibta insha allahu tacaala waan rajaynayaa inay xisbiyadu u heelan yihiin arrintaas waxaan xaqiiqaha amnigaasi iskama sii jiri karo haddaan ciidamadaas la dhiirigelinin xuquuqdooda ayna helin garibsaag buuxa shacabka xisbiyada siyaasadda aysan ka helin amnigaa ma sii jiri karo marka waxaan xoojinaynaa amnigaa aan maanta dareemayno in la sii joogteeyo oo la isgarab istaago qaybaha kala duwan ee aan nahayba dhammaanteenba midda labaad ee arrimaha siyaasadda waxaa la yidhi iskama dhiga yirin damcan waxaa jira waa wada aragnaa dalku inuu guuray oo tallaabsaday oo u guuray nidaamna ka guuray waa muuqataa runtii haddaanu xisbiyada nahay mar haddii la sheego arrimo doorasho oo dadweyne haddii la sheego oo cod iyo qof ah waa baadidii naga maqnayd xisbiskiisaba waa baadi ka maqan markuu helo arrimo doorasho oo ku imaanaya hanaan dadweyne ku imaanay runtii waa arrinta aad baan u soo dhaweynaynaa waan u hamuun qabnaa diyaarna waan u nahay waxaana leenahay ma lagu sii jiri karo nidaamkii aan kusoo maaragtay inta kusoo gaarnay ee danta la mooday laguma sii jiri karo arrin saxana maaha dalalkii naga dambeeyey ee gadaasheen burburay ayaa intay ka baxeen nidaamyadii ku-meel gaarka ahaa ayay waxay u gudbeen midda hadda aan hiigsanayna u gudbeen runtii waxaan soo dhaweynaynaa heshiiskaas siyaasadee la gaaray mabdi'iyan waa waxa aan u dhisnaynba in doorasho qof iyo cod ah la aado ummadda Soomaaliyeedna loo celiyo awooddooda codka aad iyo aad ayaan u bogaadinaynaa una soo dhaweynaynaa markaan soo koobo sida saaxiibadeedii iga horreeyay ay muujiyeenba comments badan oo aan ka qabno oo qaybo kala duwana waan jecelnahay in hay'adaha ay khusayso aan kala fariisano si degan oo habaysan oo aan taladeena ku kordhino maadaama ay dadka khusayso dadka ugu muhiimsan ugu soo horeeya aan nahay si kooban inaan intaas u iraahdo ugu dambeyn wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta xukuumadda federaalka Soomaaliya ambassador Axmed Macalin Fiqi oo munaasabadan soo xiray ayaa waxa uu sheegay in golaha wadatashiga qaran uu awood siiyay shacabka Soomaaliyeed si ay u doortaan cid ay doonayaan waxaana inta ku dareen
guddiga 15 xubnood ee farsamo loo saaray ay yihiin guddi cadaalad kaas oo ka shaqeyn doono in si xor iyo xalaal ah doorashada ay u dhacdo. horta guddigan muxuu qabanayaa way guddigan wuxuu qabanayaa doorashadii qaranka oo xildhibaanadii senataradii madaxweynihii iyo ku-xigeenkiisii wuxuu qabanayaa dowlad goboleedkii xildhibaanadii madaxweynihii madaxweyne ku-xigeenkii wuxuu qabanayaa dowladihii hoose oo golayaashii deegaanka iyo maayaradii intaas buu qabanaya intaas yaa wada jooga way dabeecada guddiga wuxuu uga duwan yahay guddigii hore doorashada federaalka kaliya u qabanaya dalkuna ma midaysnayn doorashada xaggeeda qolo walbaaba siday rabto iyo qaanuunka rabtay iska degsanaysa si dalka loo mideeyo waxaa la yiri golayaashii deegaanka iyo dowlad goboleedkii iyo dowladdii dhexe hal guddi ha qabto guddigaasna ka wada yimaado intaas maadaama intaas doorashooyinkooda la wada qabanayo farqiga halkaas waa maxamed ruuray warbaahinta goobjoog muqdisho.